السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحابتا قيمة بدني كحرن جنرال كأيام تكنولوجي isku soo noqdo wanaagsan insha allahu tacaala hadduu alla idmo maanta waxaynu qaadan doonaa cashirkii ugu dambeeyey aynu ku baranayno softwareka photoshopka waxaan u mahadcelinayaa boqolkiiba boqol allah subxaanahu watacaala oo noo suurtageliyay annaga oo caafimaad qabno inaan isla soo gaarno halkan oo softwarekan maanta aynu dhammayno softwarekan waxaynu kusii xiji doonaa insha allahu tacaala software kaleeto oo lagu magacaabo illustrator iyo photoshop labada softwareba waxay ka tirsan yihiin graphic design haddii aad baratay softwarekan waxaa shardi ah inaad baratid software kaleeto lagu magacaabo illustrator si aad u noqotid full graphic design sidoo kaleeto Premiere Pro aynu kusii diri doonaa illustratorkana markuu noo dhammaado waxaa laga rabaa oo keliya inaad intaas aad nala joogtid oo aad ku taxanaatid bartan oo aad noqotid qofka ugu horeeya ee heleeto resourceska aynu soo gelino waxaa la mahadiisa coursekan inaanu kusoo sameynin design-yadan ay ka mid yihiin design-kan aynu hadda joogno iyo sidoo kaleeto design-kan ugu horeeyo markii koowaad cashir koowaad aynu kusoo baranay design-kan sidoo kaleeto waxaynu soo baranay design-kan el classic sida ciyaaraha loo naqshadeeyo sidoo kaleeto iyo maqaayadaha boorarkooda si loo naqshadeeyo id kaarada sidoo kaleeto sida loo naqshadeeyo id kaarada waxaan u kala qaadnay laba qayb basic ah oo bilow ah iyo sidoo kaleeto id kaar professional ah waxaynu kusoo baranay cashiradii dib ayaa u milicsan kartaa sidoo kaleeto sida loogooyin loo sameysto loogooyinka waxaynu ka xulanay jaamacadan uniso jaamacadda soomaaliya jaamacad kasta waad samayn kartaa sidoo kaleeto iyo roll up sida loo sameeyo roll upkan sida loo geliyo mockup cashirada ayaynu kusoo baranay sidoo kaleeto waxaynu soo baranay sida loo sameeyo shahaado sidoo kaleeto waxaynu soo baranay sida loo sameeyo id kaarka sida loo geliyo mockup ugu horeeto id kaar keligiis waa haatan mock ayaan gelinay sidoo kaleeto waxaynu soo baranay sida loo baabi'iyo nabrahan oo wejiga looga dhigo weji nadiif ah sidoo kaleetona sida makeup ama loo mariyo sunniyaha iyo sidoo kaleeto bishimaha furuuryaha sida iyadana loo mariyo sawirkan wuxuu noqooyey sawirkan iyo sawirkan waa arki kartaa farqiga u dhexeeyo marka intaas oo cashir waxaynu kusoo baranay coursekan photoshopka ah waxaynu usii gudbi doonaa oo aynu wax kasii baran doonaa illustratorka hadduu alla idmo aynu usoo laabana marka cashirka maanta iyo cashirka waxaynu kaga bogan doonaa hadduu alla idmo 3 websites ee ay muhiim tahay inaad ogaatid haddii aad tahay qof graphic designer ama ay tahay inaad ogaatid inta aad ku dhex jirtid graphic designka websiteka koowaad waxaa lagu magacaabaa freepik waxaad qori doontaa freepik markaad qortid .com ayaa raaci doontaa kadib internet waxaa kuusoo bixi doona websitekan aniga hore ayaan u sirjin gareeyey markuu kuusoo baxo websitekan interfacekan horta websitekan wuxuu kaa caawin doonaa wax allaala wixii la xiriira templateska waxaad u baahan tahay keliya ayaad ku qori doontaa meeshan search engine-ka hadda waxaynu dhihi doonaa id kaar markaaynu dhahno waxaa noo soo bixi doona dhammaan id kaarada designyada weliba kuwii ugu dambeeyey id kaarada markay kuusoo baxaan id kaaradan waxay isugu dhex jiraan bs vector waxaa loo yaqaanaa illustratorka halka bsd loo yaqaano photoshopka marka ma waxaad u baahan tahay id kaar ah illustrator mase waxaad u baahan tahay id kaar ah photoshop mase waxaad u baahan tahay id kaar oo ah sawir ah mase waxaad u baahan tahay id kaar video ah midkaa rabtid ayaa dooranaysaa waxaan dhahnay softwarekan markaad soo geshid marka koowaad interfacekan ayaa kuusoo bixi doono interfacekan waxaad u baahan tahay waxaad ku qori doontaa meesha lagu magacaabo search engine-ka waxaynu dhihi doonaa hadda waxaan u baahanahay id kaar kadib waxaynu dhihi doonaa search markaanu dhahno wuxuu kuusoo tuuri doonaa isla markiiba id kaarada ugu dambeeyey ee dunida laga isticmaalo id kaarada markaa aragtid id kaaradan waxay isugu jiraan kuwa lacag ah iyo kuwa free ah sidee ku kala ogaanaya kuwa lacag ah iyo kuwa free ah id kaarka markaa imaatid haddii ay saaran tahay calaamada stageka waa lacag wuxuu kaa rabaa lacag ma digsan kartid sidoo kaleeto waa kana mid ay saaran tahay waa kana haddii ay saaran tahay calaamada stageka id kaarkaas waa lacag balse haddii aysan saarnayn id kaarkaas maaha lacag waa degsan kartaa haddaba sidee baan ku degsan karaa id kaarkan kilig ayaa ku dhihi doontaa id kaarka markaa kilig ku dhahdid waxaa sii doori doontaa qaybtan downloadka markuu soo baxdo markaad ku dhufatid waxaa arki doontaa laba qaybood ah go brand iyo sidoo kaleeto qayb ay ku qoran tahay free download qaybtan free downloadka ayaad kilig dhihi doontaa id kaarkaas si default ah waa uu kuugu degi doonaa waxaynu ku xiran tahay xawaaraha internetka aad haysato
sida ujeediinba waa kana waa kuu digaya banaanka ayuu kuu tagi. Website-kan waxa ugu muhiimsan ee laga helo waxa waaye templates. Template waxaa la dhahaa design diyaarsan oo keliya aad ka bedbedeli doontid waxaad u baahatid. Hadda waxaynu raadinay ID card, sidoo kaleeto waxaynu raadin karnaa logo. Logooyinkana way ku jiraan. Wax allaala waxaad u baahato oo maskaxdaada kusoo dhaco keliya waxaad ku qortaa qaybtan search engine-ka, kadib waxaa kuusoo bixi doono logooyinka, balse waxay ku xiran tahay xawaaraha internetka. Sidaa ujeediinba hadda waxaa noo soo baxay dhammaan logooyinka ku jiro. Logooyinka ayaga kala duwan. Loogada aad u baahanta ayaa geli doontaa, ma loogo letter ayaa u baahan tahay xaraf keliya, ma loogo symbol meesha ay ku qori doontaa loogada aad u baahan tahay. Website-kan intaan ayaan ugu gudbi doonaa. Website kaleeto oo muhiim tahay haddii aad tahay graphic design inaad ogaatid waxaa lagu magacaabaa Hexacolor. Waxaad ku qori doontaa Google-ka hexacolor.com. Ani hore ayaan u search gareeyay way soo bixi doonaa. Linka ugu koreeya ku qoran tahay color hexacode codes ayaa ku dhufan doontaa. Markaad ku dhufatid waxaa kuusoo bixi doono dhammaan colorska. Website-ka muhiimadiisa waxay tahay markaad design gareynaysid waxaad fiirsan doontaa kalarka aad u baahan tahay, kalarku cajib geliya, kadib koodkan ayaa copy gareysan doontaa. Koodkan sida ujeediin meesha saaran ayaa waxaad dhihi doontaa highlight, midka u baahan tahay ayaa copy gareysan doontaa. Colorska kuwana waa badan yihiin, intaan midka rabtid ayaa ka dooranaysaa. Website-kan ahamiyadiisa guud waxay tahay inuu kaa caawiyo colorska meeshan kaa cajib geliyo ama kalarka aad jeclaatid inaad copy dhahan kartid oo aad geysan kartid Photoshop-kooda, kadibna qaybta colorska aad tegi doontid qaybtan, kadibna paste aad ku dhihi doontid qaybtan color code-ka. Marka hadda paste ku dhahno kalarkii ayaa noo saaran. Marka intaas ayaa u isticmaali doontaa. Website-kaasi waa iska fudud yahay. Waxaynu u gudbi doonaa website-ka saddexaad oo lagu magacaabo Flat Icon. qaybtan search engine-ka ayaa tegi doontaa Google-ka, kadib waxaad dhihi doontaa flaticon.com. waa kanaan hore ayaan u search gareeyay, kadib waxaad dhihi doontaa enter. Flat Iconiska wuxuu kaa caawin doonaa dhammaan iconiska aad u baahan tahay inaad kala soo degtid. Iconka u baahan tahay waxay ku xiran tahay design-ka aad naqshadeynaysid. Hadda design-kan waxaan naqshadeynaynaa maqaayad, design-ka kaleetana waxaan naqshadeynaynaa El Classic. Markasta waxay ku xiran tahay waxaad naqshadeynaysid iconka aad isticmaalaysid. Hadda hadaynu dhahno icon maskaxdan iska soo dhacay iska raadin doonaa. Hadda waxaynu raadin doonaa kasoo qabo waxaynu company isbarbar iska shaqeeyaan naqshadeynaa. Waxaynu dhahaynaa bas oo kaleeto u baahan baabuurta oo kaleeto. Markaanu dhahno waxaa noo soo bixi doona dhammaan basaska. Sidoo kaleeto waxaynu raadin karnaa iconka maskaxdan ugu soo dhaco call oo kaleeto. Icon call ah waxaa noo soo bixi doona dhammaan iconiska oo call wicitaanka call. Sidoo kale hadaan dhahno meeshan phone oo mobile ah waxaa noo soo bixi doona iconada mobilada ah. Icon allaala iconka u baahan tahay ayaad search gareyn doontaa, ayaana meeshan kala soo degi doontaa. Sidee loo degsanayaa iconka markuu kusoo baxo waxaad dul degi doontaa iconka aad u baahan tahay, kadib calaamadaas download-ka ayaad dooran doontaa, kadib waxaad dhihi doontaa free download. Saas ayuu kuugu degay. Wuxuu geli doonaa qaybtan downloadska. Hadda waa kana noo degi kii phone-ka ahay. Haddaynu open dhahnana waanu sii arki karnaa. Waa kana calliska iconkii ahay. Marka icon kasta u baahan tahay waxaad ka heli kartaa website-ka lagu magacaabo Flat Icon. Saddexdan website waa saddex website oo aad iyo aad u muhiim ah, runtiina ku caawin doono haddii aad tahay qof graphic designer ama markii aad sameynaysid design. Waxay kaa caawin doonaan colorska, codeska, templatesyada, sidoo kaleeto iyo iconisyada. Saddexda website inta ayaan ugu gudbi doonaa. Ogaataa course-kan maanta insha Allahu tacaala intaan kusoo idlay doono oo intaan ku jooji doono. Wax kaloo muhiim haddaan arkane waan idin soo gelin doonaa. Waxaynu bilaawi doonaa software kaleeto lagu magacaabo Illustrator. Marka waxaa inoo balan ah inaan usoo diyaar garowno software-kaas kaleeto Illustrator-ka. Cashirkaana inta ayaan ku ekeyn doonaa. Waxaan kaa codsanayaa fadlan inaad nagu soo biirtid oo channel-kan aad subscribe dhahdid, sidoo kaleetana asxaabtaada u share gareysid isla channel-kan. intaan ayaanu kusoo ekeyn doonaa maanta course-kan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.